munaasabad xilka loogu kala wareejinayay kusimaha barasaabka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal iyo barasaabka cusub ee gobolka Awdal Ahmed Xadi Saciid ayaa lagu qabtay xafiiska barasaabka ee magaalada Boorama. munaasabadaasi ayaa waxaa ka soo qayb galay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdilaahi Xuseen Cige, maayirka magaalada Boorama, xogayaha dawladda hoose, waxgaradka gobolka Awdal. ugu horeyntii waxaa halkaasi ka hadlay maayirka magaalada Boorama Cabdiraxmaan Shidabile, dadkii bulshada iyo dadkii oqaasha ee ka soo qayb galay munaasabadii xil wareejinta in ay la shaqeeyaan barasaabka cusub isla markaana ay ammaanka iyo horumarka gobolka ka wada qayb qaataan. waxa kaloo halkaasi ka hadlay kusimaha barasaabka gobolka Awdal ahna barasaabka xigeenka gobolka Awdal Cabdi Nuur Sugaal, waxaanu ku dheeraaday waxyaabihii uu qabtay intii uu xilka kusimaha ka ahaa. waxa kaloo halkaasi ka hadlay barasaabka cusub ee gobolka Awdal Ahmed Xadi Saciid, faahfaahin ka siiyay isla markaana ka codsaday dadkii iyo oqaashii ka soo qayb gashay munaasabadda xil wareejinta in ay ka caawiyaan kana ugu duceeyaan inuu Ilaahay la garab galo xilkaas. waxa kaloo uu barasaabka cusub ee gobolka Awdal Ahmed Xadi Saciid sheegay in ay dhisi doonaan xafiiska wasaaradda qorsheynta iyo xafiisyo kaleba. ugu dambeyntii waxaa halkaasi ka hadlay agaasimaha wasaaradda arrimaha gudaha Cabdilaahi Xuseen Cige, soo dhaweeyay xilka cusub barasaabka cusub isla markaana waxa uu bulshada reer Awdal gaar ahaan caasimada dadka degan caasimada Boorama Cuqaal iyo dadka kaleba kula dardaarmay inay la shaqeeyaan barasaabka cusub. Xadan Maxamed Xasan, shabakada wararka ee Xidigta, magaalada Boorama.